waayahay waxaan ka saanbaqaadi doonaa halka casharkii hore inoogu joogay waxaynu isku dayi doonaa inaynu install garayno qaybahan waxaynu isku dayi doonaa markaa inaynu ugu horreysiino serverkan ugu horreeya serverkan waxaan ku shubi doonaa server 2019 ah aynu ka dooran doonaa desktop experience markaa kanaynu ugu horreysiin doonaa waxaan soo furan doonaa marka VMware-ka ayaan soo kacsan doonaa si aan markaa virtual ahaan aan ugu sameeyo waayahay qaybta markay noo soo kacdo sidii caadada ahayd waxaan ku dhufanaynaa halka ay ku qoran tahay create a virtual machine ayaad ku dhufanaysaa deetana waxaad leedahay custom ayaad ka dooran doontaa next ayaad siinaysaa qaybta waxaad ka dooran doontaa browserka ayaad tegi doontaa waxaad ku shubi doontaa aad dooran doontaa waxa weeye 17ka ay ugu horeyso open baad siinaysaa next ayaad leedahay next ayaad siin doontaa yes ayaad leedahay waayahay waxaan u bixsan doonaa markaa magacan halkan noogu qoran ayaynu ula bixi doonaa waxaan leeyahay magacii ayaan halkaa markaa dooran doonaa waayahay intaa markaan sameeyo next ayaad siinaysaa next ayaad leedahay next qaybtan waxaan ka dooran doonaa 4GB aad rugan doontaa waayahay next intaba next baad leedahay qaybta ayaynu ka dhigi doonaa 100GB ama gigahertz waayahay store a virtual disk single file ayaan isagana dooran doonaa next ayaad siinaysaa finish ayaad leedahay waayahay intaan inoo soo kicin ayaynu waxa weeyaan damin doonaa si aan value diskiga uga saaro waayahay isagii ayaan soo kicin doonaa waxaan leeyahay edit a virtual machine settingisa tegeysaa qaybta value diskiga ayaad remove karaynaysaa okay baad leedahay waayahay markaas soo shid doontaa waayahay halkaa markuu marayo waxaan leenahay control iyo alta waxay noo soo bixi doontaa markaa cursor-ka inayasoo noo soo bixi doona click ayaan ku dhufanaya enter baad markaa siin doona waayahay waxaad ka dooran doontaa markaa next markuu saa kugu soo kaco qaybtaasna waad ka confirm garan doontaa install baad leedahay marka waayahay qaybtaa waxaan dooran doonaa kaa ugu hooseeya ayaad dooran doontaa deetana waxaad leedahay next ayaad siinaysaa waayahay custom baad ku dhufan doontaa next baad siinaysaa isaga stebiska ku dhamayn doono waayahay halkaa markuu inoo soo saaro waxaan gashan doonaa passwordka ayaa gashan doonaa password baad ayaad gashan doontaa markaan passwordka waxaan gelin doonaa ATU123 qaybtana sidoo kale intii ayaan confirm garanayaa deetana finish ayaad siinaysaa waayahay qaybtaas ayaan ku dhufan doonaa then passwordkan hadda soo samaysana ayaan gelin doonaa waa yes ayaan leenahay marka local serverkii ayuu inoo soo saari doonaa koritaa inoo soo saara waxaan isku dayi doonaa shaashadda sidaan u yaraynahay xoogaa soo yar fidsano oo soo weynaysiisano qaybtaas ayaad markaa ku dhufan doontaa hoos ayaad soo socon doontaa qaybta ayaad ka dooran doontaa waxaan ka dooran doonaa waaya waxaan ka dooran doonaa 1920 times 1080 ayaad ku dhufan doontaa shaashadii keep change ayaad leedahay saasay markaa shaashadii shaashad weyn ay kugu noqonaysaa oo computerka oo dhan oo flexible ku ah waayahay intaa markaan ka nimaadno qaybtan waxaynu soo bedeli doonaa inaynu soo xidhno configurationka yar inaynu sameyno waayahay kan markuu saa inoogu install garaysmay waxaan isku dayi doonaa inay security-ga soo xidhno waxaan tegi doonaa halkay ku qoran tahay local server waayahay qaybaha sidii kii hore ayaynu sameyn doonaa waxaan soo xidhi doonaa security dependerka waa on buu inoo yahay waxaan ka dhigi doonaa off baan ka wada siin doonaa way kaa war soo xidhi
kan hoosena waynu soo xidhnay way dhammaantoodba saasaan soo xidhnay qaybta waxaanu iman doonaa waxa weeyaan qaybtan enhance security configuration-kana wada off baad kasoo dhigaysaa intaa markaan saa u dhammayno in tegi doonaa inaynu featureski aynu soo install garaysano VMware bin tegi doonaa deetana VMware install tool ayaynu soo install garaysan doonaa way qaybtan ku dhufan doonaa qaybtan markaan ku dhufanno waxaan dooran doonaa run setupkaas ayaad ku dhufanaysaa markaasaa kuu soo ran garaynay next complete ayaad dooranaysaa next ayaad siinaysaa next install ayaad leedahay finish baan leenahay saasoo markaa restart ayuu isku diri doonaa waxaanu iman doonaa markaa qaybta labaad waxaan isku dayi doonaa inaynu serverkan afraad aynan install garayno serverkan waxaan ku shubi doonaa 2016 ayaanu ku shubi doonaa desktop experience sida awgeed markaa serverkaas ayaan isku dayi doonaa inaan install garayno marka isagu iso failkiisa inaynu doonano waayahay failkii waxaan tegi doonaa chromeka ayaan soo furan doonaa waxaan ku qoran doonaa Microsoft evaluation center ayaad dooranaysaa qaybta markaad dooratid ayaad soo kaxsanaysaa linkiga ugu horeeya ayaad ku dhufanaysaa linkiga markaad ku dhufatid waxaad dooran doontaa Windows Server halkay ku qoran tahay deetana Windows Server 2019 ka ugu hooseeya ayaad ka dooran doontaa 2019 ay ku qoran tahay xalay 2016 cafwan ay ku qoran tahay ISO failkiisaad ku dhufan doontaa waxaad leedahay download ISO file download markaan siino waxaanu bilan out ku sameynaynaa inta yarayin in doonaa intaas ayaad xogtaadun baad ku buuxsanaysaa waayahay halkana waxaan iska dooran doonaa Saudi Arabia sanba dooranaya job title-kana waxaa leeyahay way halkana lambarka ayaan gashan doonaa lambarkaasaan lambarska for example aan soo gelin doonaa waayo koodhkana Saudi waan ka dhigi doonaa isaga waxa weeye isqaadan doonaa download baad siin doontaa marka waayahay additionski bina weydiin doonaa qaybtaasaad markaa ku dhufan doontaa 64 bit ayaad dooran doontaa marka isaga kuu xawili doonaa markuu ku xawilo qaybtina kuu soo geli doonaa oo waa kan anigu horaan usoo xawishay laakiin adiga waxa weeye stepskaasaad dhamaystiranaysaa intaa markay ka nimaadno waxaan tegi doonaa markaa VMware-kii qaybtan waa iska soo xiri doonaa qaybta maadaama inoo dhamaystirnaatay isha doon baan leeyahay waxaan samaysan doonaa qaybta homeka ayaad tegaysaa haddaa qaybtan kuu soo bixi weydana waxaad dooran doontaa file and new version ayaad new waxa weeyaan VMware virtual machine ayaad ka dooran doontaa next ayaad leedahay next ayaan siinaynaa qaybtan waan ka deynaynaa waxaanu leenahay I will install operating system leera way halka markaa waxaan ka dooran doonaa kii aan u baahnayn kan u baahnayna waa 2016 ayaad halkan ka dooran doontaa Windows Server 2016 ah way qaybtaas ayaan ku dhufan doonaa next ayaad siinaysaa next halka cafwan magacayga ku qoran doonaa caleenay hyben way 2016 ayaan deetana waxaad ku dhufanaysaa next ramkana 4GB ayaan siinaynaa waayahay next ayaad siinaysaa next waayahay qaybtana 100 baad ka dhigaysaa deetana next ayaad siinaysaa way next markaan siino qaybtan waxaan ku dhufan doonaa aan soo dooran doonaa edit maadaama marka hore isagu ayna soo dooran waxaan tegi doonaa CD and DVD ayaad ku dhufan doontaa qaybtana tigta saari doontaa use ISO file image deetana waxaad soo dooran doontaa waayahay Windows Server 2018 desktop experience ama data center ayaad ku dhufanaysaa dan marka waad soo shidaysaa waad soo keenaysaa
waayahay enter baynu markaa leenahay enter baynu siinayn line to bus way isagana kii hore 19 bay ahayd halkaas 16 bay isagana ka confirm garaynaysaa waxaa leenahay next ayaad siinaysaa install ayaad leedahay isaguna wuxuu ku dhammayn doonaa processkii ayuu mari doonaa kaasuu ku dhammayn doonaa hadduu alla way isagana qaybta ugu hooseysa ayaad ka dooranaysaa next ayaad leedahay accept waan siinaynaa next baan leenahay custom baad siinaysaa next ayaad siin doontaa way isagana si la mid ah waxaan u samaysan doonaa password waa isagii ayaan confirm garaynaya marka mid kastaba HCU123 ayaan u samaysan doonaa waayahay isagaynu soo furi doonaa passwordkeen hadda aynu soo samaysanaa ayaan gashan doonaa way isagana yes baan dooranaynaa isaguna wakaa inagu dhacay right click baan leeyahay saan usoo yar weyneysiisto hoos baan u socon doonaa qaybta advanced display setting ayaad kasii dooran doontaa maadaama isagu xoogaa uu ka yar duwan yahay waxaan ka dhigi doonaa 1920 weeyay times 10 intaasaad ku apply garan doontaa saashadu marka saas uu kugu weyneysiin doonaa keep change ayaa ku dhufan doonaa qaybta waa iska soo xidhi doonaa localka ayaad tegi doontaa local serverka ayaad ku dhufan doontaa isagana waxaan iska soo xidhi doonaa firewalka ayaan iska soo xidhi doonaa marka isagu saa aragtaanba xoogaa uu ka yar duwan yahay Windows Server 2016ku marka 19ka loo barbardhigo isagana waan soo wada xidhi doonaa okay baad siin doontaa okay qaybtana waa iska soo xidhi isagana enhancega ayaad isagana soo wada xidhaysaa waayahay featureskiisina halkii ayaad ka install garayn doontaa si lamid ah kii hore waa in yar kabacdi wakaa inoo soo diray notificationka isagaan ku dhufan doonaa isaga markaan ku dhufanno ayaynu featureskii aynu install garaysan doonaa featureskana waxay naga caawin doonaan inay ina siiyaan wax loo yaqaano full control in wax moving ku samayn karno kad garayn karno koobi garayn karno qaybahaasoo dhan bay naga caawin doonaan kaas setupkiisan soo kicin doonaa complete ayaad dooranaysaa next ayaad leedahay marka isaga install baad leedahay isaga ku install garayaan waayo waxaa inoo hadhay computer clientskaasun baa inoo hadhay kaa waan install garayn doonaa waayo isaguna restart ayuu isku diri doonaa computerkaasina saasuu uu ku dhammaystiran yahay aynu ugu shubnay waxa weeye serverka 2016 waayahay intaa hore markaan ka nimaadno waxaynu install garayn doonaa computerkii inugu dambeeyey waxaan ku shubi doonaa qaybtan computerka waxaan ku shubi doonaa computer client buu inoo noqon doonaa inagoo ku shuban doonaa Windows 10 oo waxa weeye client aynu isticmaali doonaa hadduu alla idmo waayahay si aynu ugu shubanno waxaan dooni doonaa qaybtii loo yaqaanay ISO fileka halkaa waxaan ku qoran doonaa Microsoft Evaluation Center websiteka ayaan booqanayaa Evaluation Center ayaad ka dhufan doontaa qaybta linkiga ugu horeeya qaybta Windowska ayaad dooran doontaa Windows 10 Enterprise ayaad ku dhufan doontaa intaa markaad ku dhufatid qaybtan waad iman doontaa isagoo ISO file ayaynu la degi doonaa waliba qaybtan hore ayaynu ku dhufan doonaa qaybtan markaan ku dhufanno wuxuu inoo soo saari doonaa isla si la mid ah qaybihii hore win outkii ayaan ku samayn doonaa qaybahan aynu iska soo buuxin qaybaha markaynu soo buuxino waayahay qaybtaas markaa qaabkaas uu inagu install garaynayaa waxaan leenahay 64 bit ayayna additionska ka dooranaynaa marka Windows 10kii qaabkaas uu kugu install garaynaya waayahay marka waxa weeye waxa ugu dambeeya waa versionkii ugu dambeeyey oo 22 soo baxa
waxaan tegi doonaa VMware-ka ayaanu soo furan doonaa. Waxaan ku dhufan doonaa new, waxaan kasii dooran doonaa new virtual machine. Qaybta markaan kasii dooranno, qaybtii customka ayaynu ku dhufan oo next baynu siin. Qaybta I will baad ku dhufan doontaa install operating system. Waayahay, waxaan ku dhufan doonaa next ayaan dooran doonaa. Qaybtan ayaan ka dooran doonaa qaybtaan u baahnayn oo ah Windows 10. Windows 10 laba ku jira ka 64 ay ku qoran tahay oo ugu sarreeya ayaad ku dhufanaysaa. Next ayaad siinaysaa. Halkaas ayaan waxaan u bixin doonaa magaca ayaan ula bixi doonaa. Waayahay, deetana waxaan siinayaa next ayaad siinaysaa next. Qaybta fahamka ayaad isaga 4 baan isaga kasoo dhiganayaa. Next ayaan siinayaa next next next. Waayahay, edit baan ku dhufanayaa virtual machine settingkiisa ayaan ku dhufanayaa. Qaybta markaan ku dhufto waxaan tegayaa DVD-gii. Qaybtan ayaan kasoo dooranayaa marka. Isagii baad soo dooranaysaa marka waa kaa dhexda oo 19 ugu horeyso. Okay baad marka siinaysaa. Markaasaad hawigii computerkii soo keenaysa. Waayahay, yes baad leedahay. Waayahay, qaybtana waxaa inoo soo saaray Windowskii. Hadda wax server inooma raacin. Maadaama Windows caadi yahay, waxaad ku dhufanaysaa next baad ku dhufanaysaa. Install baan markaa qaybtaas ayaad ku dhufanaysaa. Waayahay, yes baan dooranaynaa. Qaybtana yes ayaad dooran doontaa. Waayahay, skip ayaad ku dhufan doontaa. Yacni waa sidii Windowska caadiga ah loo install gareyn jiray unbuu kuu soo saaraya. Waayahay, qaybtana waxaan ula bixi doonaa aad u bixin doontaa magaca ayaad ku qoran doontaa next baad leedahay. Qaybtan passwordkana waa iska dhaafi kartaa next ayaad siin doontaa. Ka isaga ku install gareyn doona. Accept baan leenahay. Way qaybaha defenderskan iska soo xiri doonaa. Qaybaha defenderska waxaanu soo siin doonaa. Qaybtana nooc ayay leenahay. On baan siin doonaa, off baan siin doonaa. Qaybtana off baan siin doonaa. Qaybtan ugu dambeysana labadan qayboodna off baad siinaysaa. Waayahay, qaybtaas saas ayay inoogu dhan tahay. Isagana waxaan ku install gareysan doonaa. Waxaan ku install gareysan doonaa VM toolskii.
way finish baan leenahay marka isagaa start isku diri doona